garoonka sayid maxamed cabdulle xasan ee magaalada kismaayo ayaa tan iyo saakay subaxnimadii hore aad mashquul u ahaa iyadoo mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyo saciid cabdulaahi deni oo ahaa qofkii ugu horreeyay halkan ka soo dego ay garoonkan soo gaareen sidoo kale ra-iisul wasaarayaal ay ka mid yihiin maxamed xuseen rooble cabdi faarax shirdoon saacid xasan cali khayre iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa halkan soo gaaray madaxweynaha Jubbaland iyo labada gole ee Jubbaland sidoo kale shacabka kala duwan ee degmada Kismaayo ayaa soo dhaweyntooda tan iyo saakay halkan ugu sugnaa iyadoo galabnimadana ay soo gaartay wufuudu imaanshahooda ilaa 8 diyaaradood oo halkan maanta ka soo degay ayaana waday mas'uuliyiintan oo u yimaaday shirweyne ka furmi doona maalinimada berri ah magaalada Kismaayo kaas oo looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka dastuurka dalka oo ay fila Soomaaliya wax ka bedel badan ku sameysay iyo si guud siyaasadda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo aan maanta imanin ayaa la rajaynayaa subaxnimada hore ee berri in uu soo gaaro isagoona shirka isla berri gelinka hore bilaaban doona kasoo qayb gali doona wali waxaaynu bartanka kaga jirnaa munaasabadii weyneed ee lagu soo dhaweynayay mas'uuliyiinta madasha mustaqbalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo dabcan saacadaha inagu soo aadan garoonka diyaaradaha sayid maxamed cabdulle xasan soo gaari doona waxa hadda barbarkayga taagan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Jubbaland mudane Cabdi Fataax Maxamed Mukhtaar oo ka mid ah mas'uuliyiinta hawshan qabanqaabadeeda qaybta weyn kale isla markaasina guddiga hawshan qabanqaabinayo mas'uuliyiinta ku jirta ka mid ah wasiir ku soo dhawow Somali Cable maalmihii u dambeeyay waxaad qayb ka ahaydeen ama aad wadayn munaasabadan weyn Jubbaland horta ugu horeyn maxay uga dhigan tahay mas'uuliyiintan ay soo dhaweynayso iyo shirka dhacaya yaxya aad u mahadsantahay Jubbaland waxay uga dhigan tahay runtii guul weyn inaan soo dhaweyno martidana sharaf bay noo tahay dhammaan wafuudda kala duwan ee inoo imaanaysa ka kala imaanaysa guud ahaan deegaanada Soomaalida Jubbaland way soo dhaweynaysaa Jubbaland sida lagu yaqaan waligeed gogasha asal bay u ahayd annaga waan naqaanaa sida goglaha noocaana loo dhigo waan naqaanaa sida martida loo sooro waan naqaanaa sida masiirkeena iyo masiirka ummadda Soomaaliyeedba aan ugu talin lahayn waxay uga dhigan tahay halkan annaga waagii hore weerar baan ugu lahaa hadda annaga weerar celisa marka si fiican bay wax walba u socdaan Soomaaliya waxaan rajaynaynaa in wadadii lagu hogaamin lahaa ummadda Soomaaliyeed shirkan bay eegaysaa shirkan la eegaya marka ahmiyad weyn buu ugu fadhiyaa Soomaalida marka annaga waxay nooga dhigan tahay inaan ummadda Soomaaliyeed jiheyno mustaqbalkooda ka talino meesha ay aadayaan iyo meesha ay ka imaanayaan aan u horseedno dadku waxay leeyihiin Jubbaland shirkan waxay ku doonaysaa in ay bal dib siyaasad ahaan u soo kabato maadaama muddo dheer xanibaad siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo wax oo dhan ay wada saarnaayeen mana jirto natiijo laga sugayo macno leh maxaa uga jawaabaysaa natiijo weyn ayaa laga sugayaa cidda tiri natiijo macno lagama sugayo runtii way riyootay halkan natiijo macno leh oo wanaagsan oo weyn baa laga sugayaa shirkan annagu wuxuu noogu fadhiyaa muhiimad gaar ah ummadda Soomaaliyeedna muhiimad gaar ah ayuu ugu fadhiyaa waxa aan ka shaqeynayna waa naqaanaa siyaasadda dalkana inaan jaangoyno insha Allah waan rajaynaynaa dad badan oo dabcan siyaasadda falanqeeya ama ka hadla waxay maalmihii u dambeeyay sheegayeen in Jubbaland ay aad ugu adkaatay inay kala doorato fila Soomaaliya iyo mucaaradka oo marar badan oo shirku waqti hore u dhacay lahaa sida qorshe lahaa waa ka dhaxgalay fila Soomaaliya kala doorashada ma weelin ragaa weynu dirnay wax kala doorasho la yiraahdo ma way jirtaba asalku annaga waan naqaanaa waxa aan ka shaqeynayno sida aan u shaqeynayno iyo waxa aan u baahannahay waan naqaanaa marka kala doorasho wax la dhaho ma jirto waan naqaanaa meesha aan aadayno hadafkeenana sida ma taqaana aan adiga ku arko ayuu noogu muuqdaa marka wax wanaagsan baan ka shaqeynaynaa kala doorasho wax la dhaho ma jirto waa meesha jirno waa la ogyahay okay dadku waxay leeyihiin shirka inuu baaqdo waxyaabay sababtu ahaa waxa qayb ka ahayd in ay Jubbaland ka dhur sugaysay bal in fila Soomaaliya heshiiska shirka 10kii bisha lagu balansanay sida la sheegayo jadwalka annaga lahayn martida annaga leh martisoorka annaga leh
ahmiyadda iyo jadwalka shirkan iyo qabanqaabadaba Jubbaland baa iskale sida markii Jubbaland u soo kala hormarsanaysa waqtigeeda ayadaa taqaan marka waa delayed ma jirin annaga garanaynay sida aan dadka u casuumi karno iyo waqtiga noogu habboon ba annaga garanaynay marka wax baaqday halka aan ka saxee ma jiraan maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta mucaaradka ah ee dabcan dawladda ka ra'yi duwan hadda shirkan ma lagu casuumay mase ka mid yahay mas'uuliyiinta imanaysa dabcan mas'uuliyiinta imanaysa hadda aniga maxamed cabdullaahi farmaajo kama dhaxarko laakiin cid u diidaysa mal hadduu yimaado cid dhahaysa maxaad u imaatay ma jirto laakiin dadku waxay leeyihiin mas'uuliyiin waa sax asalka annaga ciddaan casuumayno iyo cidda nala shaqaynaysa iyo cidda sharkeena ka soo qayb galayso wariyaasha way u wada joogaan way arkayaan mudane wasiir ma jirtaa mucaaradka qaarkooda inay shuruud ku xireen haddii farmaajo uu imanayo inaynan iyaga imanaynin annaga taa ma ogi messajkaas ma ogi meesha dabcan waa rumin oo bulshada baraha bulshada waxyaalo badan baa lagu qorayaa aragti qofna lama gayd garayn karo oo annaga nama saameynayo laakiin asalka waxaa waaye cid walba ee doonaysa inay shirkan ka soo qayb gasho wuu u furayay gogasha Jubbaland gogol furan waaye qof kasta oo noo yimaadana waa la shaqaynaynaa watahay aad baa mahadsan tahay wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Jubbaland Cabdifataax Maxamed Mukhtaar weli waxaan ku sugannahay garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo daqiiqadaha inagu soo aadan ay mas'uuliyiin kala duwan oo madasha mustaqbalka Soomaaliya halkan ka soo degi doonaan dadka ayaana u diyaarsan soo dhaweynta mas'uuliyiintaas kala duwan waxaa hadda socota munaasabadda lagu soo dhaweynayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre sida gadaasheeda ka muuqata ra'iisul wasaaraha uu garab socdo madaxweynaha dawladda Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa si weyn loogu soo dhaweynayaa gadigida diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyadoo ay soo dhaweyntan qayb weyn ka qaadanayaan shacabka degmada Kismaayo oo iyagu ku qaylinaya ra'iisul wasaaruhu soo dhawo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya si gaar ra'iisul wasaarayaashii hore ee Soomaaliya kuwooda ugu saameynta badan iyadoo la xasuusto in uu ahaa marka laga reebo wasaaraha hadda talada haya ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa ee soo xukuma ama xukuumadda federaalka Soomaaliya soo layliya waxaa soo dhaweyntan qayb ka ah maamulka degmada Kismaayo iyo shacab kala duwan iyadoo shucuurta dadkuna ay aad u kacsan tahay soo dhaweyntuna ay tahay mid heerkeedu sareeyo waxaa hadda barbarkayga taagan gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne oo ka mid ah mas'uuliyiinta munaasabadan qaybta ka sidoo kalena ka mid ah guddiga munaasabadan abaabulkeeda iyo qabanqaabadeeda qaybta ka ah waxaan kelmado su'aalo kooban ka weydiin doonaa kulankan iyo waxa ku saabsan gudoomiye ku soo dhawow ugu horeyn Somali Cable munaasabadan adoo noo soo koobaya waxay ku saabsan tahay bismillah maanta waa maalin weyn waa maalin ummadda Soomaaliya taariikh u leh waa 12 December waxaan soo dhaweynaynaa madaxdii hore ee Soomaaliya iyo madaxda xilka haysta madaxda sabata bixinta iyo Jubbaland iyo Puntland oo lagu badbaadinayo Soomaali weyn dadkii Soomaaliyeedna waa ku halka taagan jacaylka madaxdooda iyo soo dhaweyntooda waxaan leenahay soo dhawaada insha Allah shirka waxaan ka filaynaa shir khayr oo Soomaali meel fiican u jiheeya saasaan filaynaa wayahay todobaadyadii u dambeeyay waxaa la sheegayay filla Soomaaliya inay juhdi badan ku bixisay inay shirkan isurtaag ku samayso ugu dambeyn waxaa muuqata in hawshaasi ay soo dhammaatay shirkan dhicidiisa Jubbaland maxay dhanka filla Soomaaliya marka la fiiriyo maxay ku wayn doontaa filla Soomaaliya intii waa ka dhamaaday waa kaas libaax markii laga saaro waxa maqaniini karo marka riwaayadeedu waa dhamaatay halkan odayga Xasan ahaa salaam baan ku siinay waa naga noqday wax damo sheegay lama hay si diyaardi Malaysia oo dhuntay ma hayno marka hadda filla Soomaaliya warkeedu ma yaale Soomaalidii kale Soomaalida rabtay oo dawladnimada rabtay baa meeshaan isku imaanaysa insha Allah taala yar waa iska imaan doona wax sidaa ma jiraan wayahay madaxweyne Xasan Maxamed muddadii waagi u imanayay waxaa jirtay kelmad caan baxday oo warbaahinta qabsatay oo islaanigan halkan kaaga duubay taas oo ahayd wixii hore xal dhalay baan laga noqday maanta maxaad leedahay annagu sidii baana odag waa noo yimi waa salaanay waa soo dhaweynay waa naga tagay maba haynaba maxaa waxaan rahlaa horta qof soo ilaahay kama horeyso ya waa dhanba diyaaradii Malaysia la dooni jiray maba haynay waagu yimaado yaa wax ka oranaa waa mahadsantihiin waa tayaada mahadsan tahay wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada
cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo aynu dabcan su'aalo ka weydiinaynay kulankan iyo waxa uu ku saabsan yahay sidaa halkan ka muuqatana waxaa socda qabanqaabadii u dambeysay oo lagu diyaargaroobayaa kulanka soo dhoweynta mas-uuliyiinta kala duwan ee mucaaradka oo halkan shir kagu yeelan doona maalmaha soo socda